xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ku adkaysanayaa in shariifka uu ka guuro miranaayo sidoo kalena ciidamada daacadda u ah ee ilaalada u ah shariifkana lagu wareejiyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya hubkana iska dhigaan. Shariifkana wuxuu leeyahay ciidankeygii ma wareejin doono, miranaayana kama guuri doono. Xaalka caawa magaalada Muqdisho halkaas ayuu maraya. Waxaa la soo warinayaa oo xogta ay nagu soo gaaraysaa in xasan sheekh maxamuud uu ku adkaysanayo in shariifka uu ka guuro miranaayo. Sidoo kale markuu guurayana keligii uu baxo isagoon wadanin ciidamo isaga ka amar qaata. Macnaha ciidamada shariifka ayaa waxa lagu wareejinayaa dowladda federaalka Soomaaliya. Shariifka oo gacmo laalaadana wuxuu u guurayaa meeshii awal uu ka yimid ee u dhoweyd madaxtooyada. Shariifkana markaa waa uu diiday. Shariifka wuxuu yiri yeeli maayo, Muqdisho dhex deganahay, miranaayaan joogaa, meel uma socdi. Ciddii xoog ii adeegsan kartana ha ii adeegsato, diyaar baan u ahay. Shariifka marka wuxuu yiri haddii ay dhacdo inaan ogolaado dalabka odayaasha oo ay noqoto inaan halkan ka guuro, ciidamadeedii kama guuri doono, dowladdana kuma wareejin doono. Waa in ciidamada aan iswada raacno, waayo ayaga ii dhimanayo, waayo ayaga ayaa i garab taagan, iyaga ayaa xabadda ii ridaya. Meel uma socdi ayuu taagan yahay. Haddii aan baxayana oo odayaasha aan dhageystana waa in ciidanka ila baxaan ee ma fulin doono dalabka xasan sheekh maxamuud oo ah in ciidamada hubka ay dhigaan isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegto. Xaalka magaalada Muqdisho caawa halkaas uu maraya. Ciidamo fara badan ayaa hadda waxa ay ku qulqulayaan miranaayo oo dowladda federaalka Soomaaliya ka socda. Sidoo kale ciidamo gurmad ah oo shariifka u imaaday ayaa iyagana goobta shariifka uu degan yahay ku sii socda. Daqiiqad walba waxaa la filayaa in xabad ay ka bilaabato magaalada Muqdisho. Habeen hore kheyre ayay ahayd, waa la soo afjaray, sheekadii way soo gabagabowday, kheyre meeshii wuu ka guuray. Caawa waa shariifka. Maanta oo Macalin Mahdi hadlay waxa uu yiri hubkan waa hubkii kheyre ciidankiisa aan kala wareegnay. Kul dhowna waxaan u soconaa shariifka, miranaayo ayaan u aqal qaadanayna ayuu yiri. Haddii marka odayaasha ay ka soo daalaan oo yiraahdaan waa ka soo daalnay, xabad way bilaabanaysaa. Daqiiqad walbana xabad ayaa ka bilaaban karta miranaayo iyo magaalada Muqdisho. Xaalka waa adag yahay. Wixii soo korona shaaciyo wansho ayaad kala socon doontaa. Muuqaalkan qabo, saxabtaadii la wadaag. Waa maasantahay.